Turkiga iyo 2023 waa bilowga marxalad cusub oo juqraafi siyaasadeed ah. Wixii ka dambeeyay dagaalkii koowaad ee adduunka, Turkiga waxaa loogu dhawaaqay inuu yahay ninka buka ee Yurub. Waxay awoodi waayeen inay dhistaan boqortooyo u weyn sidii boqortooyadii burburtay ee Cusmaaniyiinta. Allied Powerskii ay hogaaminayeen Ingiriiska iyo Faransiisku waxay ku qasbeen Turkiga inuu saxeexo heshiiskii Lausanne ama Lausanne Treaty oo ka dhacay sanadkii 1923 magaalada Lausanne ee waddanka Switzerland, taasoo ay ka dhalatay in Turkigu ka tanaasulo dhul aad u ballaadhan oo uu lahaan jiray. Sida ku xusan sharciga caalamiga ah, heshiiskan waxa uu dhacayaa 100 sano kadib. Waqtiga heshiiskani dhammaanaya waa 2023. Haddaba muxuu Turkigu la soo noqon doonaa maadaama heshiiskii 2 sano ka baaqi yihiin? Madaxweyne Erdogan wuxuu caddeeyay in Turkigu ay gali doonaan marxalad cusub sanadka 2023. Turkigu wuxuu bilaabi doonaa sahaminta, baaritaanka iyo qodista shidaalka iyo macdanaha kala duwan. Turkiga ayaa laga yaabaa inay kor u qaadaan khidmadda cashuuraha ee marinka Bosphorus oo ah marin dhumuc yar oo kala qaybiya qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Sidoo kale Turkigu waxa uu dhisayaa mashruuc aad u ballaadhan oo kanaal ah oo isku xidhaya badda Madow iyo badda Marmara. Ujeedada mashruuca ayaa ah in la fududeeyo qulqulka maraakiibta ee maraya biyo-xireenka Bosphorus. Kadib markii la saxeexay heshiiska Lausanne 1923, Turkiga ayaa ka tanaasulay madaxbannaanidiisii Qubrus, Liibiya, Masar, Suudaan, Ciraaq iyo Levant. Si kastaba ha noqotee, howlgallada ballaadhan ee Turkigu ka fulinayo waddamada Islaamka waxay muujinayaan kacdoonnada ballaadhan ee Erdogan la soo aadan yahay. Kadib burburkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxaa Islaamka cagta hoosteeda geliyey madaxweynihii Kemal Atatürk. Turkiga waxaa ka samaysmay dowlad cilmaani ah oo mamnuucday dhammaan calaamadihii ummad Islaam ahi lahaan jirtay. Hadafka Erdogan ee ah in la kordhiyo saamaynta Turkigu ku leeyahay bariga dhexe iyo inuu hogaamiyo dunida muslimiintu waxay ka cadhaysiin doontaa dhammaan reer galbeedka iyo xulafadooda. Haddaba carqalad la'aanta isu dheelitiranka awooddu waxay horseedi kartaa xasilooni militari oo dheeraad ah dhanka gobolka. Sidoo kale, marka la eego xaqiiqooyinka siyaasadeed ee ka soo ifbaxay dowladaha Islaamka, waxay doonayaan taba ay uga faa'iidaystaan fursadaha Turkigu horkacayo ee midaynta mar kale iyo muslimiinta. Erdogan waxa uu shaaca ka qaaday in Turkigu ay qaabeynayaan mustaqbalka gobolka oo dhan marka ay gaadhaan sanadka 2023. Haddaba ma u malaynaysaa in sanadka 2023 ay isbeddel dhab ah ku samayn doonaan khariidadda adduunka? Mase u malaynaysaa in Turkigu uu noqonayo quwadaha caalamiga ah kadib marka uu dhaco heshiiskii Lausanne?